بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم سودو هذا ملك دون كاد كنو شهين أيام توا إسويني رمضان أيا الوجرا بشهر رمضان أو براكيسان رمضان وحيرو فركوتريس سدح بري إلا لهم بري أيام نمان مسلمين تمال كستو كنو شهين وحادين لا يهي عيد وناكسن dadka hala taakulayo oo ma arkin oo danyarta ah si ay si fiican ay ula ciidaan gaar ahaan geyga Soomaalida iyo adduunka muslimiinta meel kastay ku nool yihiin dadka danyarta in si fiican looga farxiyo loona ciidiyo insha Allah ta'ala tasqeer ay ku dhamaaya waxaan rabaa inaan baaqo diro meel kala dugdugan إن شاء الله تعالى أيانتي رمضان كدبات بدن أيا جرت Soomaalida dhexdooda gaar ahaan gobolada Soolsanaag Cayn إن شاء الله تعالى dadkaas waxaan idin leeyahay in dadka Soomaaliyeed wiil dhalinyaraha ku dhimanayo taasna waxay noqonaysaa quwadii Soomaaliyeed oo garabka ka jabto mar labaad taariikhda marka insha Allah ta'ala waxaan leeyahay taas in ay wax garadka Soomaaliyeed aqoon-yahanada Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan dhihi lahay in dagaalkaas ma arkin oo la joojiyo aanan la dagaalamin sababtoo ah hooyada ayaa gablamayso wiilka dhalinyarada dalkan iyo dadkan wax u tari lahay ayaa dhimanaya taasna quwadi Soomaaliyeed mar labaad garabka ka jabto waa marka adeegaas ayaan u dirayaa goboladaas saddexdaas gobol iyo maamulka Puntland iyo maamulka Soomaaliya waxaan rabaa dhankan kala hadii loo fiiriyo dawladda waxay fadhiisatay shirka golaha qaranka wax fiican oo badan oo wax ku ool ayaa ka soo baxay intii wax ku oolaheed oo ka soo baxdana waxaa la rabaa inay dhaqan galaan ay wixii shaqeeyaan oo ma arkin oo lagu heshiiyey inay shaqeeyaan insha Allah ta'ala la dardar geliyo markaasna ay shacabka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta matalaya dalka in ay waxooda af Soomaali kaliya aynan ahaanin ay ahaato laakiin wax tar yeelato insha Allah ta'ala marka xigta waxaan leeyahay dad ayaa waxay ku hurdayaan ma arkin oo way iska hurdayaan dawlad ununka ilaa 60kii ayaan dawlad ahaynay ilaa ma arkin oo waxaa jiran ilaa uu gumeystii jira xataa xarmo oo ma arkin oo dadka aqoonta iyo tacliinta ayaa jirtay marka meelaha soo jireenka oo noocaas ma arkin oo dad qaas ay dhisahayaan gaar ahaan magaalada Muqdisho ununka duqa magaalada Muqdisho duqan soo doorana ma damcan waxaan rabnaa inuu indhihiisa furo inuu danta guud oo isha ku hayo hadii uu wax ka tari karin inuu kursiga uu isaga tago si public waliba inuu isaga tago kursiga hadii oo danta guud oonan ilaali karin danta guud waxaa kamid ah xarmaha ay dawladda ay ku shaqeyn lahayd wasaaradaha iyo iskuulada dadka danyarta kor u soo kici lahaayeen inay shirkada qaas ay maanta ay la wareegaan ma dhici karto mana dhacayso taas waxaan u dirayaa gaar ahaan gudoomiyadiisu iyo ayadoo ku sii camaaraysantaa dawladda federaalka Soomaaliya ma arkin oo ku shaqeeyaysa magaalada Muqdisho iyo ku dhex joogaan in diriskooda sharci darro unan ka shaqeey maadaama ay leeyihiin cadaalad aan soo celinaynin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.